tartan kubadeed loogu magac daray isbuuca Soomaalida ayaa ka bilowday magaalada London. Tartankan Somali Week loogu magac daray ayaa horey loogu yaqaanay in lagu qabto wadamo kala duwan sida Canada iyo Sweden, balse markii ugu horeysay ayuu ka bilowday amase lagu qabtay magaalada London ee boqortooyada wadankan Ingiriiska. tartankan lagu wado inuu socdo ilaa iyo 18 bishan ayaa waxa isku arki doona amase ku tartami doona 12 kooxood oo 9 kamid ay wadankan UK ay ka socdaan, halka saddexda kale ay ka kala yimaadeen wadamada Holland, Finland iyo Sweden. furitaanka xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharafeed ay isugu jira ciyaartooy hore ee u ciyaari jiray xulka qaranka Soomaaliya iyo waliba tababarayaal dadyow caan ku ahaa sportska Soomaalida, kuwaasi oo ka kala yimid dunida tacaladeeda sida wadanka Canada, Mareykanka iyo waliba Yurubta galbeed. waxaa sidoo kale furitaanka xafladda ka soo qayb galay fanaaniin markaasi ay horkacayso fanaanadii Faadima Qaasim Filowle oo halkaasi ka qaaday heestii Soomaaliyeed. hadbaki natag darane waxaa la oyhayo ilmadu iga qubataaye istiqlaal nin loo diido la adoonsadaanahay hadbakina taagdarane Soomaaliya hanalato isboortiga hanalaado fanaaniinta iyo fanka hanalaadeen. waa mahadsantihiin. Faadima Qaasim Filowle halkaasi ka soo qayb galay fanaaniin kale oo ka mid yahay Cabdirasaaq Kaadsoco. Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale ninkii kala saar laho ninkii kala sooc laho ninkii suxunu fakaro aday taladii ku segtee sidaad moodaysa mahe. tartan kubadeedkan Somali Week oo markaasi dadka reer London amase wadankan UK ay u aadi jireen wadamo fogfog sida Canada iyo Sweden ayaa la filayaa in sanad walba lagu qabto magaalada London, iyadoo arintaasina ay aad u soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska. daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta mudanaw waxaa daawanayseen ciyaartii maanta dhex maraysay kooxda Juba iyo Elamos oo ku dhamaatay 1-1. ciyaaruhu ma ahan maanta oo kaliya, ciyaaro fara badan ayaa soo socda. waa Cabdinaasir Ciro, ETN London.